taliska ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay gaari xalay fiidnimadii lagu afduubtay duleedka magaalada Hargeysa kaasi oo ay taliska ciidanka booliska xalay saqdi dhexe sir jaraa'id qabteen oo ay faahfaahin kaga bixiyeen arrintani habkii iyo hanaankii uga hawlgaleen qabashada gaarigaasi cidii lahayd iyo burcadda afduubatay intaba saraakiisha sarsare ee ciidanka booliska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hormudu yahay taliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye gaas Abdullaahi Fadal Iimaan oo uu weheliyo taliye ku-xigeenka ciidankaasi sareeye guud Cabdiraxmaan Liibaan Foox ayaa waxa ay ka hadleen hawlgalkaasi sidii loo fuliyay ugu horeyn taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay habkii uu dhacay afduubkani loo geystay gaariga taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye gaas Abdullaahi Fadal Iimaan ayaa waxa uu xusay in gaarigan oo laga afduubtay duleedka caasimadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa laga soo qabtay ku dhawaad 10 kiiloomitir in dhinacan koonfureed ka xigta tuulada Bandarwanaag oo ku taala koonfurta magaalada Hargeysa oo ay halkaasi iska caabin ka muujiyeen burcadda afduubatay gaarigaasi taliyaha arrimahaasi sharxayana wuxuu yiri sida ka warqabtaan ciidanka booliisku hadiya jeer isagoo gudanayo waajibaadkiisa qaran ee ilaalinta amniga gudaha wuxuu iskaga jiraa heegan hadiyo habeen waxa caawa dhacday abaaro 7:00 saacadu markay ahayd ayaa geerash ku yaala agagaarka hoteelka gaari xamuula oo waaraada oo lambarkiisu yahay 17560 oo shirkadda Omar leedahay una rarnaa sidayna taarka garaydka lagu laabo ayaa koox burcada oo gaari nooha wata ay gaarigaas oo markaa Krishboog la joogo daroolkuna ka degay halka ay dhaawac u geysteen Krishboogii gaariga ka haysteen xamuulka ciidanka booliisku hawlgal ballaaran ayuu galay iyagoo ka duulaya burcadaasi halkii ay gaariga ula jahada ula kaceen ciidanka booliiska ee gobolka Daadmareed oo Dadweyne ciidamada booliiska ee Cadaadley ciidamada booliiska ee Samawanaag waxaanu gulinay heegan inay jidadka galaan oo hawlgalka xagga kor kaga yimaadaan halkan waxa ka baxay ciidan booliisa iyo saraakiil hogaaminaysa gaadiid nasiib wanaag kooxda burcad iyo ciidanka booliisku waxay iska heleen meel ilaa 10 kiiloomitir magaalada Bandarwanaag koonfur ka xigta halkaas waxay sameeyeen kooxda burcad iyo xoogay iska caabina hase yeeshee arigoo Ilaahay u mahad celiyay ciidanka booliisku wuxuu ku guuleystay inay gaariga waaraadka ahaa ee rarnaa iyo nooha ay wateen burcaduba ay gacanta ku dhigaan waa Naasir Cabdiqaadir Cabdi Wahaab telefishinka Badda Cas magaalada Hargeysa.